Taariikhdu markay ahayd 3 Sebteembar sanadkii 2012, magaalada Medellin ee dalka Colombia waxaa ka dhacay weerar qorshaysan oo lagu dilay haweeney 69 sano jir ahayd. Xilliga la dilayay haweeneydu waxay ka soo baxday dukaanka hilibka ee magaalada Medellin ee dalka Colombia. Waxay ahayd xilli galab ah oo dadku badankiisa ay ka adeeganayeen suuqyada magaalada Medellin, balse mar qura waxaa isbedelay jawiga goobta, waxaana la maqlay dhawaqa risaas loo furay si mirbeel ah. Ninka dilka geystay waxaa la sheegaa inuu ahaa darawal kaxaynayay mootada loo yaqaano labalugaaleyda. Markii uu dilka geystay, waxa uu si dhaqso ah uga baxsaday goobta. Dambiilihii dilkaas geystay lama qaban, lama ogaan cidda uu yahay iyo sababta uu u dilay haweeneydaas. Laakiin dilalka noocan ah ma ahayn kuwa ku cusub dalka Colombia, oo waxaa dalkaas horey uga dhici jiray dilal xad dhaaf ah oo sidan oo kale ah. Balse sheekada la yaabka leh waa in haweeneydan la dilay ay iyadu ikhtiraacday aragtida dilalka loo fuliyo naqshadan iyadoo la adeegsanayo mootada labalugaaleyda. Haweeneydan waxaa lagu magacaabi jiray Griselda Blanco Restrepo, oo sidoo kale loo yaqiinay magacyada kale ah hooyadii kokaynka iyo garoobka madow. Waxay ahayd haweeney ka ganacsata daroogada, dilaa arxan daran, iyo qof nolosheedu ahayd rabshado caga leh. Waxay dishay ganacsato, rag ay xiriir jacayl lahayd, iyo xitaa saygeedii hore oo ay u dhashay 3 carruur ah. Waxay ahayd yaraanteedii tuug jeebsiib ah, qof jirkeeda ka ganacsata, ugu dambaynna u xub siibatay ka ganacsiga daroogada. Sheekada haweeneydan waa mid xiiso badan, dhanka kalena argagax badan, balse aan ka daba geeyo qisada nolosha isku kariska ah ee Griselda Blanco Restrepo. Griselda Blanco Restrepo waxay dhalatay 15 Febraayo 1943. Goobta saxda ah ee ay ku dhalatay xog sax ah lagama hayo, waxaana ka taagan dood badan. Ilaha qaar waxay tilmaamayaan inay ku dhalatay Cartagena oo Colombia ku taal, halka kuwa kale ay sheegaan inay ku dhalatay Santa Marta oo isla Colombia ah. Waxa ay ku kortay nolol faqri ku lamaan, waxayna nolosheeda dambiyada ku dhisan ay bilowday iyada oo da'yar ah. Markii ay jirtay da'da 11 jirka, waxa ay ka qayb qaadatay afduubka wiil ay dhaleen qoys ladan oo Colombian ah. Waxa ay weydiisteen qoyska wiilka in ay bixiyaan lacag madax furasho ah, balse qoysku waa ay ka biyo diideen arrinkaas. Waxaana ay taasi sababtay in ay disho wiilkii ay afduubka u haysatay. Iyadoo weli da'yar ah ayay guursatay ninkeedii ugu horreeyay oo lagu magacaabi jiray Carlos Trujillo, waxayna u dhashay 3 wiil, inkasta oo markii dambe ay kala tageen. Sanado kadib, waxay amartay dilka Carlos Trujillo, saygeedii hore ee ay 3 wiil u dhashay. Horraantii 1970-meeyadii waxay xiriir la yeelatay Alberto Bravo, oo ahaa ganacsade weyn oo ka ganacsan jiray kokaynka. Waxay ka baratay ka ganacsiga kokaynka, wayna isguursadeen, waxayna saldhig ka dhigteen magaalada New York ee dalka Mareykanka. Lamaanahan waxay dhiseen shabakado isku xiran oo dalka Mareykanka soo gelin jiray darooga nooc walba leh. Si gaar ah, Griselda Blanco Restrepo waxay adeegsan jirtay jeebabka dhar hoosaadka la xirto si ay ugu qariso daroogada ay u safrinayso Mareykanka. Ganacsigeeda daroogada kokaynka wuxuu gaaray heer ay bishii kasbato lacag gaaraysa $70 milyan. Si kastaba ha ahaatee, Griselda Blanco Restrepo waxa ay wajahday dacwado la xiriira ka ganacsiga iyo soo gelinta kokaynka gudaha dalka Mareykanka. Iyadoo wajahaysa eedeymahaas ayay dib ugu laabatay dalka Colombia sanadkii 1975. Sanadkaas waxay xaqiiqsatay in ninkeeda Alberto Bravo uu lacag ka xaday, waxaana halkaas ku soo afjarmay nolosha Alberto Bravo. Kadib israsaasayn dhex martay isaga iyo xaaskiisa Griselda Blanco Restrepo, waxaa halkaas ku geeriyooday Alberto Bravo oo ahaa sayga hooyadii kokaynka dalka Colombia, Griselda Blanco Restrepo. Garoobka madow ama hooyada kokaynka ma ahan Alberto ninkii ugu dambeeyay ama ugu horreeyay ee iyada qabay ee ay disho. Xitaa waxa ay nolosha dhaafisay ninkeedii 3aad ee iyada qabay kadib Alberto. Dhammaadkii 1970-meeyadii, Blanco waxay dib ugu laabatay
magaalada Miami, gobolka California ee dalka Mareykanka. Waxay dalka gelisay marxalad kala duwan oo jahwareer, rabshado iyo dilal ah. Waxa ay abuurtay rabshado iyo ficillo xagjirnimo. Waxa ay amartay dilal badan kuwaas oo badankood ay fuliyeen dagaalyahano saaran mootooyinka labalugalayda, taasoo ay iyadu hindistay qorshaheedana ka dambeysay. Blanco waxa ay noqotay mid ka mid ah ganacsatada daroogada ee ugu qanisan caalamka. Waxa ay Mareykanka soo gelin jirtay daroogo gaaraysa ilaa 3 tan sanad kasta. Blanco Restrepo waxay sanadkii 1984 u guurtay gobolka California ee dalka Mareykanka. Isla sanadkii ku xigay ee 1985 ayay booliisku ku xireen gobolka California ee dalka Mareykanka, waxaana lagu soo eedeeyay dambiye la xiriira dilal iyo ka ganacsiga daroogada. Sanadkii 1988 ayay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah. Kadib markay dhammaysatay xukunkii maxkamadda, waxaa dib loogu celiyay dalka Colombia oo ah meesha waayaheeda nololeed soo afjari doonta. Blanco markay dib ugu soo noqotay dalka Colombia, waxay ka fariisatay noloshii dambiyada, daroogada iyo dilalka arxan-darrada ah ka koobnayd. Markii ay taariikhdu ku beegnay 3 Sebteembar sanadkii 2012, xilli galab ah, Blanco oo ka soo baxday dukaan lagu iibiyo hilibka ayaa waxaa rasaas huuyay nin kaxaynayay mooto. Ilaa hadda lama oga cidda uu yahay ruuxaasi iyo sababta uu u dilay Griselda Blanco Restrepo. Blanco waxay ahayd mid ka mid ah haweenka ugu khatarta badan ee ka ganacsada iibinta iyo tahriibinta kokaynta. Waxayna qabriga u diri jirtay dadka ay ka dareento inay lacag ka khiyaanayaan, tartamayaasha suuqa iyo cid kasta oo ay halis u aragto. Balse waxaasoo idil waxay soo dhammaadeen Sebteembar 3 sanadkii 2012 galab Isniin ah. Daawade, waxaa halkan ku eg sheekada hooyadii kokaynka Griselda Blanco Restrepo. Haddii aad nala soo gaartay ilaa dhammaadka, fadlan xaqiiji inaad ku soo biirtay channelka, sidoo kalena aad like garaysay muuqaalka. Haddii aad intaas samaysay, mahadsanid. Tan iyo kulanti dambo, amaan Allah.